gudoomiyaha jaamacadda Hargeysa ee Jamhuuriyadda Somaliland Maxamuud Yuusuf Muuse oo ku sugan waddanka Djibouti ayaa heshiis dhinacyo badan taabanaya la saxiixday dhigiisa gudoomiyaha jaamacadda Djibouti waxaanu heshiiska saxiixaasi ka dhacay xarunta jaamacadda Djibouti ee ku taala caasimadda Djibouti waana markii ugu horeysay ee heshiis kala saxiixdaan jaamacadda Hargeysa ee Jamhuuriyadda Somaliland iyo jaamacadda Jamhuuriyadda Djibouti heshiiskaasi kadib waxaa ka hadlay oo soo dhaweeyay gudoomiyaha iyo heshiiskan ay kala saxiixdeen gudoomiyaha jaamacadda Djibouti sidoo kale waxaa isna hadal mahadnaqaya soo dhaweynaya halkaasi ka soo jeediyay gudoomiyaha jaamacadda Hargeysa Maxamuud Yuusuf Muuse maanta xiriirkan aan saxiixana waa xiriir taariikhi weeyaan waa xiriir tusaya maxay ahayd walaaltinimadii iyo kalgacalka ka dhaxeeya labadeena wadan iyo labadeena jaamacadood waa xiriir aan suganay in badan oo naawilaynay maanta oo maxay ahayd aan saxiixna xiriirkan waxaan rajaynaynaa insha Allah inuu activity iyo maxay ahayd dhaqdhaqaaq ka dambeeyo insha Allah on maxay ahayd warqadu ahaan xiriirkan oo maxay ahayd aan isweydaarsanno macallimiinta ahaato ardayda ahaato wixii khibrad aan isweydaarsan karnaba xiriirkan maanta noo asmaxaya inta aad Hargeysa ka timid Djibouti aad noogu timidna waad ku mahadsan tahay aad ayaan ugu faraxsanahay in maanta labada jaamacadood jaamacadda Djibouti iyo University of Hargeysa inay kala saxiixdaan heshiis iskaashiya oo dhinacyo badan taabanaya kaas oo maanta barbilow ah oo lagu bilaabayo waxyaabo yar oo kooban ilaa 5 qodob wixii ka dambeeyana u gudbi doona xiriir weyn oo muddo qoto dheer Djibouti iyo Somaliland ama dalka aan ka yimina waxay leeyihiin xiriir dheer oo taariikhi ayaa ka dhaxeeya oo walaaltinimo gacal ah waxyaabo badan oo la wadaaga dhaqan af dadnimo walaaltinimo iyo waxyaabo badan baa ka dhacay taasna waxa iyadana sii noqotay in ay nagu dhiirigelisay jaamacadda Hargeysa jaamacadda kaliya ee geeska ku taalay ay taynanu ka bilownay inay jaamacadda Djibouti taasina aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan jecelahay xiriirkaas inuu ka sii socdo aanu isu bedelin saa madaxweynaha jaamacadda uu sheegay wax warqad ku qoran kaliya aanu isu bedelin wax practical ah oo fulin ah la fuliyo bilaha soo socdana hadii la ka dhigo jaamacadda Djibouti xaggaas ay iman doontaa waxaan la fulin doonaa qodobada ku qoran heshiiskan maanta aynu tilmaanay Maxamed Jaamac Waale telefishinka qaranka Somaliland Djibouti